waa maxay xaasidnimada? maxaase lagu gartaa qofka xaasidka ah? xaasidnimada waxaan dhihi karnaa waa laba qaybood, mid uu qofka ku dhasho iyo mid uu qofka gadaal ka noqdo, iyadoo kalifaysa inuu xaasid noqdo marxalada kala duwan ee nolosha soo martay. xaasidnimada waa wax qofka qalbigiisa ku jiro oo ku kalifaysa qofka ama ku qasbayso inuu dadka xasdo dhan walba ay ahaato, isagoona markaasi wax faa'iido aan ka helaynin. waxaan ka hadlaynaa tan lagu dhasho iyo tan gadaal laga noqdo. xaasidnimada lagu dhasho waa mid qofka isaga abuuran oo dhihi karna waaba qofka hubbigiisa uu ka helo, waxayna ka soo bilaabataa xilliga carruurnimada. tusaale ahaan waxaad arkaysaa ilmo kale inta uu dadka waaweyn iska eego, qaniinaya ama wax ku dhufanaya, alaabtiisa ka tuuraya, qalinkiisa ama kabihiisa ka qarinaya. waa ilmo mar walba intay iska fiiriyaan qofka ay wax ku samaynayaan oo ah kuwa ay isku fac yihiin, ku samaynaya wax dibindaabiye ah oo kaga xanaajinayo. haddaad ku qabato aad weydiiso waxa ku kalifay, ma garanayo sababta, laakiin waxa ku muuqanayso inuu farxad ku dareemayo ficilkaasi oo sameeyey. sidaasi ayay ku weynaataa xaasidnimadiisa ilaa uu ka gaaro heer xun oo ula naco wanaagga dadka walaalihiisa. wuxuu sidoo kale gaarsiiyaa heer uu ka naxo qof kasta oo wax wanaagsan sameeya, kuna fikira sidii uu ku burburin lahaa ama ku baabi'in lahaa. haddaba tan lagu dhasho iyo tan qofka gadaal ka noqdaba waxay ka sameyn yihiin dhaqanka iyo wax walba ay samaynayaan qofka markuu weynaado. maxaa lagu gartaa qofka xaasidka ah? kow, qofka xaasidka waxaa lagu gartaa waa dibindaabyo miiran. waa mid ka shaqaynaya sidii uu ku furfuri lahaa xarig kastoo aad xirto oo maslaxadaada ku jirto, weliba si dadban aadan garinin ayuu u samaynayaa. laba, qofka xaasidka waxaa lagu gartaa waa munaafiq ku adeegsanaya laba weji fiican ood ku taqaanid oo dadka ku sirto si loogu moodo qof fiican, iyo weji u qarsoon oo cadutinimada ah uu doonayo in noloshaada uu ku gubo. saddex, qofka xaasidka waxaa kaloo lagu gartaa inuu dadka isku dardaro, asigoo isla markaasina iska dhigaya qof caawinaad badan, runsheeg badan, si aad isugu furfurto oo xogtaada iyo meelaha aad ka jilacsan tahay uu ogaado, si uu u helo habka ama waddada ugu fudud ee noloshaada uu ku baabi'in karo. afar, waxaa kaloo lagu ogaadaa qofka xaasidka ah xiriir joogto ah oo ka duwan sidii caadiga ahayd, asigoo ujeedkiisu tahay si uu mar walba xogtaada iyo waxa noloshaada ku cusub uu ogaado, si howshiisa ugu sahlanaato, halka adigana aad u moodid saaxiib fiican oo kaa warhaya mar walba iyo xaalad kastoo aad ku sugan tahay, balse xaaladdu sidaas way ka duwan tahay. shan, qofka xaasidka waa mid xan badan, markasta kaga sheekaynaya dadka sharafta leh, asigoo u raadinaya dhaliil xun dadkaasi wanaagooda iyo guusha ay gaareen. lix, qofka xaasidka waa qof mar walba nacayb iyo dab ku dhex shida lamaanaha isqaba ama isguursan raba, iskuna faraxsan, iyo saaxiibada isku wanaagsan, dariska isku wanaagsan, waalidka iyo ilmihiisa, iyo laba qof kastoo wanaag ka dhexeeyo, halka Soomaalidu ay kaga mahmaahdo saddex nacayb. toddoba, qofka xaasidka ah waa mid ka xanuunsanay nicmada uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa u qayminaya ee maalinlaha ah, waxaana uu jecel yahay khaaliqa inuu asiga keliya wax siiyo oo ay dadka dhan wax ka soo gaarin nicmadaas. dhibaatada xaasidka haysta waxay tahay dagaal aan guul laga gaarin ayuu habeen iyo maalin ku jiraa. sideed, qofka xaasidka ah waa mid ay ka maqan tahay xasilloonida iyo farxadda oo aaminsan in wax kasta oo wanaagsan in Allah subxaanahu wa tacaala ka qadiyey uu ku fikirayo dad kale ayaa adiga ka wanaagsan. sagaal, qofka xaasidka waxaa ku yar iimaanka iyo ka cabsashada Rabbi subxaanahu wa tacaala, waxaana u fudud wax walba oo cagta marin karaayo wanaagga dadka kale, xitaa inuu ruuxda ka jiro qof way u fududahay. sababta oo xumaanta iyo xiqdiga qalbigiisa ku weyn ayaa ilowsi siiyey alla ka cabsashadii iyo wixii uu la kulmi lahaa maalinta qiyaame. nabigeena suban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi xaasidnimada iyo iimaanku meel islama galaan. qofka aan iimaanka lahayn waxaad garan kartaa xaaladda uu ku sugan yahay. ilaahay qalbigeenna xiqdiga iyo xasaadka allaha ka fogeeyey.